qodobkan toddobaad wuxuu ka hadli doonaa insha allahu tacaala sharpen the saw afayso faaskaaga afayso ka waran haddii aad aragto qof geed jarayo daalan markaa ku tiraada hebelow maxaa la daalan tahay ku dhaho war maanta dhan muddo 5 saac ayaa geedkan jaraya waxaa markaas haddii aad ku tiraadana oo aad ku tiri markaas warniyo bal inta nasatid afayso faaska afayso ku dhaho markaas muwaanaadana waqti baa naga lumiyo waqtiga ujeedma waqtiga la baxay naga ku dhaho maca daalika hadduu afaysan lahaa nasiinana wuu heli lahaa waqti badanna wuu soo hari lahaa laakiin wuxuu fiiriyey waqtiga dhow ama mustaqbalka dhow buu fiiriyo wuxuu arkay kaliya waqti uu ku bixinayo afaynta buu arkay haddaba dad badan oo inaga mid ah ayaa sida tan u fikira oo kaliya ka fikira mustaqbalka dhow bas ka fikira haddaba afaysashada faasku maxaa laga rajeedaa waa inaan hormariso markii dambe naftaada inaad hormariso dhinacyo badanna aad ka hormariso naftaada tusaale ahaan aljaanib aljasadi dhanka jirka inaad naftaada hormariso oo nasiinaad u baahan naftaada nasiinada u baahan tahay nasiiso number 2 hadday u baahan tahay jimicsiga u baahan tahay naftaada inaad siiso sidoo kale horumarinta dhanka xiriirka adiga rabbi ka leh inaad hormariso maxaa yeelay maanta waxaynu joognaa dunida qofka waxyaabaha inta badan oo arkay ee taa waxyaaba niyad jabiya hoos u dhigay himadiisa haddaba xiriirka rabbi la yeelanayo markuu wanaagsanaado waxaa niyad iyo horumar iyo firfircooni baynu ka helaynaa qodobka kale laga doonayo inaan hormarino waxaa weeye dhanka bulsho ahaanid inaan hormarino oo bulshada ahaanid marka laga hadlayo mar walba in ka fikiraa taya ahaan oo inaan yeesho saaxiibo yar laakiin taya leh ayaa waxay ka wanaagsan tahay inaan yeesho saaxiibo badan oo aan taya aan lahayn qodob kale naftayda inaan hormariyo mar walba aan ku sameeyo xirfado badan iyo skills badan inaan yeesho inaan isku dayo taasu ii suura gelinaysaa nolosha mar walba waxyaabihii cusub ee fududaynaya nolosha inaan la jaanqaadi karo tusaale ahaan ma laga yaabaa inaan maalin aragtay programkaas oo markaad aragtay dhahday warniyo culays badan iyo problems badan baa ugu heysanayo program horaan isticmaali jiro rafaad baa ugu heysaba haddaan ogaan lahaa kan inuu jiro mar hore ayaan samayn lahaa maxaa keenay inaadan ka warqabin oo mar walba si joogto ah aan naftaada horumarinayna ayaa keentay haddaba inaan mar walba nafteena horumarino waxay noo suura gelinaysaa mar walba inaan la jaanqaadi karno wadcigaa jira kana gudbi karno maxaa la yidhahdaa caqabadaha nololeed ee jira inaan ka gudbi karno ayay keenaysaan waay haddaba aad baa mahadsantihiin soo qurux badan u dhegeysanaysaan programka buuggeenii noo 7 qodob ka hadlayay the 7 habits of highly effective people 7 dhaqan ay leeyihiin dadka ugu saameynta badan nolosha intaa buu inoogu egyahay insha allahu tacaala waxaa jira sida hoos aa ka arki doontaan waxaa jira Facebook group aan ugu talagalnay isweydaarsi aragtiyeed sidoo kale WhatsApp group iyo Telegram group aynu sameynay aan ugu talagalnay jiilka akhriska inuu isku weydaarsado aragtiyadooda sidoo kale insha allahu tacaala qaybta foomka aan isku day inaan buuxino foomkaas aan buuxino si aan maxaa la yidhahdaa next week ama isbuuca soo socda buugga xiga aan noo soo samarsgelin lahaa kaga dhiibato aragtida fikirkaaga waa muhiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baa umahadsan tahay insha allahu tacaala wadajir ayaan ku wada shaqayn doonaa hadduu allidma